dagaalka kula jira ayaa waxa uu sheegay inaanay u malaynayn dhinacyada al-shabaab iyo xisbul islaam isagoo markaa tilmaamaya labada kooxood ee dagaalka kula jira dawladda ku meel gaarka balse waxa uu hadalkaasi raaciyay in afduubayaashaasi ahaayeen dad ka faa'iideysanaya rabshadaha ka jira Soomaaliya waxa uu sheegay wasiirku in si degdeg ah ay dawladdu ugu howlgali doonto soo furashada raggaasi dhinaca kale kulan ballaaran oo golaha wasiirada ee xukuumadda ku meel gaarka ee Soomaaliya ay ku yeesheen maanta magaalada Muqdisho oo shir gudoominayay ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa waxa looga dooday qodobo dhowr ah oo ku saabsan xagga amniga sidii loo xoojin lahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa wasiirada waxa uu hordhigay ajenda ku saabsan falkii afduubka ah ee shalay loo geystay saraakiishii u dhalatay dalka Faransiiska ee lagu afduubtay hotel Saxafi ee magaalada Muqdisho wasiirada ayaa markii ay ka doodeen ajendahaas waxa ay soo saareen baaq ay ku codsanayaan in raggaasi si degdeg ah loo sii daayo kuwaas oo ay sheegeen inay marti u ahaayeen qaranka Soomaaliyeed hase yeeshee tan iyo intii uu soo baxay afduubkaasi ayaa waxaa lagu xamalayay wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya in ilaaladiisu ay ka dambeeyeen afduubkaasi wasiirka qudhiisa ayaa cambaareeyay falkii shalay lagu afduubtay ajaanibtii u dhalatay dalka Faransiiska isagoo beeniyay wararka sheegaya inay ka dambeeyeen afduubkaasi ilaaladiisu shir jaraa'id oo qadka taleefanka ku qabtay waxaana falkaasi lagu afduubtay uu ku tilmaamay inuu ahaa mid burcadnimo ah dhinaca kalena waxa uu sheegay inuu rajaynayo in lala xisaabtami doono raggii ku lugta lahaa afduubka saraakiishaasi Faransiiska kuwaas oo ku tilmaamay inaan looga hari doonin falkaasi aad iyo aad baan maaragtay uga xunahay arrintaas aad u foosha xun oo dhacday waana xambaaraynaynaa nimankaas waxay ahaayeen laba nin oo dawladda markii u ahayd oo dawladda Faransiisku ay soo dirtay oo halkan yimid marka falkaas dhacay oo runtii aad u foosha xumaa oo burcadnimada aad iyo aad waan uga xunahay dadka ka dambeeyana waxaan rajaynayaa in la xisaabtami doono haddii ilaahay uu yidhaahdo cid kastoo lagu ku yeelatana aan lagu dhaafi doonin insha allahu tacaala marka bisha 9-keedii ay halkan ay yimaadeen hotel Saxafi ahayd meeshii laga afaasho shalay soo subaxdii marka taas ayaana marka inaan warbaahinta aan la doonsiiyo marse la weydiiyey waxa ka jira wararka sheegaya in afduubka saraakiishaasi ay ku lahaayeen ilaaladiisa oo iminkaba gaarigii iyo ciidankiiba ay ku xiran yihiin madaxtooyada dawladda ku meel gaarka ayaa waxa uu sheegay Sheekh Cabdiqaadir Cali Cumar inay taasi tahay dacaayad ay meelaha la wareegayaan dad raba inay qariyaan dadkii falkaasi afduubka ka dambeeyay taas waa dacaayadka iyo beenta lala wareegayo dadka beenalayaalka oo raba inay dadbaan dadka falka geystay oo dulmiga geystay marka taas waxba kama jiraan aniga saabtiisa waa la yaqaanaa lugna kuma lahayn ciidan kaloo haddana waan leeyahay ma jiro marka taas waa been weeye waxaa falkan geystay waa burcadaasna maaragtay waa raadkeeda waa lagu joogaa wax badanna waa laga hayaa magacyadooda iyo maaragtay qaabka ay maaragtay ay wax u qabteen intaba marka taas waa midaas weeye markasta loo leexdo dhanka shacabka ayaa hadalhaynta magaalada Muqdisho dadka qaarkood ay siyaabo kala duwan u dhigayeen afduubkaasi waxay qaar ka mid ah ku tilmaameen in la dayacay labada ruux ee laga afduubtay hotel Saxafi mar haddii ay ahaayeen saraakiil sare oo ka socotay dalka Faransiiska si kastaba ha ahaatee afduubkan oo ahaa mid qorshaysan oo aanay cidina ku dhiman